waxaa la filayaa in maalinta berri ah magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan lagu qabto tartan doorasho oo ah kursiga Hob 58. tartankaasi waxaa ka haray xildhibaankii kursigan ku fadhiyay dhowrkii sano ee la soo dhaafay ee Nuur Iido Beyle, sidoo kalena ka mid ahaa saaxiibada madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasin. laakiin waxaa isu diiwaan geliyay ilaa 5 murashax oo ay ku jiraan siyaasiyiin mug ku leh siyaasadda gobolka Hiiraan. murashaxiinta kursiga loo diiwaan geliyay waxaa qayb ka ah madaxweynihii ugu horreeyay ee maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cusuble iyo taliyii hore ee hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Ambassador Cabdullaahi Sanbalulshe. si rasmi ah looma oga qofka ku soo bixi karo maadaama uu yahay kursi furan oo loo geli doono tartan adag. laakiin reer Beledweyne waxay qabaan in tartanka ugu adag uu dhaxmari doono Cabdullaahi Sanbalulshe iyo nin lagu magacaabo Cabduqaadir Xuseen Colow. dadka u dhunduleela arrimaha doorashada ee ku sugan Beledweyne waxay qabaan in labada murashax midkood uu noqon karo murashaxa matali doona beesha ku aftirsata kursiga Hob 58. Cabdullaahi Sanbalulshe oo ah mucaarad muddo dheer dagaal siyaasadeed kula jira maamulka madaxweyne Farmaajo waxa uu taageero xoog leh ka haystaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo xubno ka tirsan odayaasha dhaqanka ee beeshiisa. mana xuma rajada tartankiisa sida ay qabaan ila xogogaal oo ku sugan Hiiraan. Cabduqaadir Xuseen Colow ilaa hadda lama sheegin dhinaca uu jiro mucaarad iyo muxaafadba, laakiin waxaa aad ugu dhow oo la filayaa inuu taageero xoog leh ku garab istaagaan kooxda madaxweyne Farmaajo iyagoo dagaal adag kula jira agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Cabdullaahi Sanbalulshe. murashaxan waxa uu haystaa fursad uu kaga guulaysan karo Cabdullaahi Sanbalulshe haddii wareegyada ugu dambeeya isla gaaraan. waxauna heli karaa ergada jufada uu ka soo jeedo Nuur Iido Beyle oo ciil iyo carab badan u qaba Cabdullaahi Sanbalulshe, taasoo ka dhigan in murashaxan uu ku tashan karo 3 meelood 2 meel ergada doorashada. murashaxiinta kale ee kursigan u tartamaya ayaa dhankooda qaba rajo wanaagsan iyagoo haysta ama heli kara fursado dahabi ah oo ay kaga guulaysan karaan labada murashax. guddiga maamulka doorashada Hirshabelle ee SID ayaa galabta shaaciyay in la kordhiyo tirada guddiga soo xulaya ergada doorashada, kuwaasoo ka kooban odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka. waxaana sababta tirada loo kordhiyey lagu sheegay in lagu xallinayo cabashooyin jira, waxaana lagu daray 2 qof oo dheeraada, taasoo muujinaysa in maamulka Hirshabelle oo qaatay go'aan adag oo wax kaga bedelay qodob ka mid ah heshiiskii doorashada Soomaaliya. 5 murashax ee loo diiwaan geliyay doorashada kursiga Hob 58 ayaa caawada ololahoodii ugu dambeeyay ee doorashada, iyadoo si weyn looga dareemayo gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. kursiga Hob 58 waxa uu ka mid yahay kuraasta doorashada aadka loo dhowrayo, isla markaana natiijadiisa ay murashaxiin badan ku xisaabtamayaan.